sanjabiil ka shaaha lagu daro ayaa ku soo badanaya dalka Soomaaliya dad badanna waxa ay ininka ku baraarugayaan faa'iidada uu leeyahay sanjabiilka iyadoo makhaayado badan oo furanna lagu gado shaah sanjabiil lagu kariyay sanjabiilka ayaa la ogaaday in Allah subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray 115 walxo oo faa'iido u leh caafimaadka waxaana la sheegayaa in walxahaasi in badan oo iyaga kamid ah ay ka faa'iido badan yihiin daawooyinka kiimikada ah ee hadda jira loona adeegsado xanuuno kala duwan in lagu daweeyo sanjabiilka waxyaabaha ugu horeeya ee lagu daweeyo waxa kamid ah ka hortagga wadna xanuunka sanjabiilka toonta iyo basbaaska waxa ay ziyaadiyaan qulqulka dhiigga waxayna la mid tahay daawada asbariinka la yiraahdo ee la siiyo dadka wadnaha ka xanuunsan sanjabiilka ayaa sidoo kale awood siiya murqaha waxaana ay u shaqeysaa sida daawo wadnaha murqihiisa ka shaqeysiiso sanjabiilku sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku abuuray awood lalabada dajisa kana hortagta mataga waana sababta loogu taliyo in haweenku ay adeegsadaan xilliga walaca ay ku jiraan sanjabiilka sidoo kale waxa loo adeegsadaa calool xanuunka calool majiirka iyo dheefshiid xumada dadka qaarna waxa ay u cabaan sida cabitaanka oo kale waxaana uu ka hortagaa laguna daweeyaa calool fadhiga sanjabiilku dhaqaatiirtu waxa ay sheegayaan inuu sare u qaado difaaca jirka isagoo firfircooni geliya unugyada difaaca jirka dhaqaatiirtu waxa ay yiraahdaan haddii aad qaliin galaysid ama markaa qaliinka ka soo baxdid oo aad ka cabsi qabtid infection ka qaadid meesha laga qalay marso saliidda sanjabiilka waxay ka awood badan tahay qalajiyaasha la isticmaalo sanjabiilka ayaa leh awood uu kaga takhalusi karo qayb kamid ah jeermiska jirka ku beerma sanjabiilka waxa la sheegay in uu ka hormaray 29 daawo oo la barbar dhigay awoodda jeermis dilidda sanjabiilka haddaba macluumaad intaasi ka badan oo sanjabiilka ku saabsan waxa ka sheekeynaya Dr. Ahmed Ali Madar bilgeed korta la yiraahdo aynu u naqaano sanjabiisha geedka asigriif waxa lagu raajinta afnuurish waxa lagu raajin ingafar geedkaas inagu markaan dadka Soomaalida horta nahay isagoo oo buda ah oo la tumay ayaan cuni jiray geedka la yiraahdo ingafarku ama geedka aynu sanjabiilka u naqaanaa waa geed iyo cajaayib badan geedkaas waxa kumaanku sanadood ka hor lagu cuni jiray wadanka loo yaqaano Shiinaha iyo wadanka loo yaqaano India iyo wadamada la yiraahdo wadamada Asia dhexe geedka aad u cuni jireen geedka hadaba wuxuu kamid yahay bahda dhirta ee la yiraahdo Sinchiverika سمعتني وابا لسه كمدا ما كان سنجيبيل كمدا سنجيبيل أنا بستعملها كنت وكمدي لاتيكا هيك ما كان جيت كاسو وحوليه هي وبحا وحكبحا